halkan podiumkan kulley aniga ima cusbo 10 sanadood iyo dheeraad baan halkan shaqada baarlamaanka ka soo shaqeynayay sida la socota runtii waxaan runtii aad idinka hambalyeynaya inaa golo qurux badan oo wanaagsan oo dibna u habaysateen la wareegteen anagu 2005 markii nala doortay halkan qol yarood nimankii la oran jiray guroodayaasha lahaayeen oo Allah u naxariistay maxamed ibraahim ciyaaro dhisay baan lagu wareejiyay shirgudoonkuna halkaa dambe marti sharaftaas fadhidaabuu qol yar ku lahaayo isna halkaas ay fadhii jiray marka maanta waa golo qurux badan oo aad u dhalaalaya waana horumarka dalkeenu mar ka dambaysa uu samaynayo waxa runtii aan u sheegayaa 20 sanadood kulley 45 xeer oo dalka lagaga dhaqmo ayaan wax ka diyaariyay oo dadkii ka shaqeeyay sidaan imka u shaqeynaysan oo kale anaha qaar kamid ah personal aniga uriyay inka dalka lagaga dhaqmo qaar gudiyahan baan ku curinay xeerka ugu muhiimsan ee maadaama gudoomiye bangigu joogo central bank ugu muhiimsan halkan carab ku dhufanaya waxa weeyaan xeerka maamulka bangiga dhexe central bank act aniga iyo xildhibaan salabaad cawad cali bukhari iyo gudadeedii 6 bilood baan xeerka diyaarinay 150 wuxuu ka kooban yahay qodob waxa 94 xeer lagu aasaasay oo 30 qodob ayaan ugu nimi kaasaan u bedelay dawlado badan iyo safarro dibadda baan u galay inta baa garoonka waxaan idin sheegayaa in xubin ka mid ah golaha imika aan wasiirahaadeen aan ahaayo shaqadan aynu kahaysaan qaranka u soo jirnay inta haddaan ku dhaafo wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya magacaabay inaan dadweynaha iyo ummadda ugu adeego waa wasaaradda aad u ballaaran waana halbowlihii nolosha waa wasaaradaha adeegga qabta ee taqaaniin ugu sii muhiimsan waayo caafimaadku marka qofku xanuunsado ayuu caafimaadka u baahdaa waxbarashadu biyuhu laakiin subax kasta iyo galab kasta iyo waqti kasta waa loo baahan yahay sidaa awgeed bay tahay ugu muhiimsan marka waxaan in yar idinka taabanayaa qorshaha waxaan dib ugu yar noqonayaa sidii ay ahayd xaaladdeedu maaha aniga waxaan doonayaa inaan ilaa 10 sanadood dib ugu noqdo halkan waxaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha oo dhulka fadhiya Siciid 2010 wuxuu ahaa agaasimihii guud ee markaa loo magacaabay wasaaradda isaga iyo Xuseen Cabdi Ducaale waxa ay la wareegeen 50 ceel oo dalka oo dhan ceelasha dhaadheer maanta waxa dalka ka jira oo 10 sanadood ama 12 sanadood 500 iyo 3 ceel oo dhaadheer marka taasna waxay ku tusaysaa sida ay horumarku u socdo marka halka qiyaas qaado waxa baahida ugu weyn ee qorshaysan aan anagoo taageer duulina qorsheeyay waxa weeye wadankeenu waxa weeyaan wadan simi desert oo ah shubu saxraa waxa la yiraahdo hadii jeer abaar baa soo noqota sidee looga bixi karaa waa laba qorshe ayaan diyaarinay ku qaarkoodna hore u diyaarsanayaan oo duulina inaan si dardar gelino mid waxa weeyaan ceelasha ay gashanka boqola 3 sanadood in lagu gaarsiiyo 1500 ceel si marka abaartu dhacdo looga faa'iideysto underground water iyo dhulka hoostiisa ku jira way xaraabtu yaraanaya haddii tuulo wal ama biyo ay leedahay ceel ama meel ku dhow ceelay taas waa qorshaha marka budgetka dawladda iyo la isla kaashado iyo dunida kale iyo hay'adaha waa la samayn karaa waana qorshayn qodobka labaad waxa weeyaan sida imika miisaaniyadda idin hortaala ka muuqata miisaaniyadda waxaa ku jira balliyo badan waxaa ku jira ceelal waa qorshe sanad ah marka waxa ceelasha iyo labadaba loogu daray balliyadana loogu daray waxa weeyaan balliyadu xilliga roobkana waa laga faa'iideysanaya underground waterkana waxbay ka tarayaan
sidaa awgeed meelaha biyaha dhaadheer laga waayo in iyadana baliya loo bedelo qorshaha saddexaadna waxaa weeyaan biyo xidheenno in dalka loo sameeyo biyo xidheennada waxaa loo sameynayaa in badan baa dumuuxaadkaa iyo doonistaasu ay dalkeena ku jirtay laakiin weli lagama dhabaynin biyaha qulqulaya ee togogaa in la xidho waxaa jira daraasadda sameeyey oo lagu dhaqmi doono oo lagu qiyaasay 30 milyan in halkii daanba 30 milyan oo dollar ay ku bixi doonto oo iyadoo buug 200 oo page ay ka wasaaradda taalo taas waxaynu la kaashan doonaa waxaynu aynu diyaarsanayno iyo waxaynu adduunka la kaashanayno daraasaddaas waxaa loo gudbiyey oo jimcihii aanu ka wada hadlaynay World Bank iyaguna daraasad kale sameeyeen oo iyaguna 600 oo page oo 3 milyan oo dollar ku baxday oo biyaha qulqulaya toogay la qabto ku saabsan qorshaha dheer buu noqonayaa 5 sanadood ha qaato ha ka yaraado ha ka bato laakiin waxa weeyaan waa qorshe ay tahay daruuri in dalkeena laga dhaqaaqo haddii 10 dhaan noqdo waxaa laga yaabaa 400 ilaa 300 milyan inay noqdaan marka taasuna waa qorshahaas waxa ugu horeeya la qabanayaan waxa weeyaan daraasadii iyo weelkii iyo istidhigaad samaysan kaasaa la diyaariyey annaguna waa dardar gelinay waqti kasta qaadatay waa hadii la ka dhigo waa suuro gelin doonaa hadii la ka dhigo baarlamaanka iyo hay'adaha kale dowladda arrimahaas si national ah insha Allah ay tahay inay uga wada shaqeeyaan qorshaha haddaan intaa ku soo koobo waxaan qodob kale ku darayaa wakaaladaha oo iyagana halka adeega tooska ah bulshada magaalooyinka ay gaaraan wakaaladuhu waxay hoos yimaadaan wasaaradda marka laga yimaado wakaaladda Hargeysa oo toos madaxtooyada hoos timaada ilaa xilligii Allah naxariisto maxamed xasan ibraahim ciyaal wakaaladu waa halka dadka biyaha ka waraabisa magaalooyinka wakaaladu aad bay badan yihiin waana korayaan ilaa 5 sano dambeeyay ilaa 13 wakaaladood baa lagu daray wakaaladii hore jiray kuwa makaaladaha waaweyn si dadka adeegooda u gaarsiiyaan waxaan iyana sameynay guddiyo bil kastana si joogto ah ayaa ay warqin ku soo gudbi doonaan 3 biloodna shir weyn oo wakaaladaha baan ku qaban doonaa xarunta wasaaradda waxaan toosin doonaa maamulka nidaamka maamulkooda iyo nidaamka dhaqaalahooda financial systemkooda waxaan kordhin doonaa sida adeegga u kordhiyaan hadda way korayaan magaalooyinka oo dhan biyahooda way korayaan waa la socotaan Hargeysa Berbera Burco Boorame dhul badan marka kuwaana saasaan u qorsheynay adeeggaas dadka si toos ah u fargaa gabagabadii waxaan idinku soo gabagabeynayaa waxa weeyaan waxaan idinka sheegay daawan waaweyn oo aynu u baahanayn noqdo ilaa 300 waxaan markaa xildhibaan ahaan idin soo jeedinayaa shaqooyinka ugu weyn ee dadweyne baa ka wakiiltihiin sida qodobka 9 iyo 30 ee dastuurku dhigayo baahiyaha jira gudaha marka laga yimaado dabaddana waa la wadaagi kartaa wixii dadkiina ku cabanay marka Soomaaliya oo ay deegaanka dhudhunkayna kaga xiran sanadkii waxaa la nabadgelyo ilaalin lagu siiyaa $1 billion nabadgelyo ilaalintaas mashruuc bay sanad waxba kama xaasilaan magaceedina waa la sheeganayaa noo soo gabagabeeyay kelmaddaas ma soo gabagabeynaya waxa weeyaan $1 billion hadday sanad kasta siiyaan oo sanadla hadday 500 milyan ama 400 milyan beesha caalamka biyaha ay noogu qodaan waxay noqonaysaa in waxaas oo dhan 100 sano soo socda ka fargalin marka waxaan idinka codsanayaa inaad resolution arrintaa international community ku saabsan soo saartaan 2008 markii qaraxu uu ka dhacay Hargeysa grade-keena hoos bay u dhigeen bulshada caalamka halkan baaqo baanu ka soo jeedinay resolution aan adduunyada u diray 2008 markii qaraxu qaraxyada ka dhacay baaqa waxa lagu waajiyay Security Council-ka aan u diray Security Council-ka waxaan ku nigi haddii terrorist lagu soo duulay oo dhibaato la gaadhay inaan nagu ciqaabtaan ma ahayn grade-kayga hoos u dhigtaan laakiin waxay ahayd inaan waxtar loo geysataan waxaan ku soo markaa baaqaas idinkana inaan nagu caawisaan oo dadkiina ku caawisaan
dhaqaalaha socda ee dunidu qulqulaya soconaya Soomaaliya ku qaabin inaan ku rabaaqiyo baarlamaanka magaciisa idinku isticmaalay qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan waxaan soo jeedinayaa inaan codsi aniga iyo mas'uuliyiinta kale inaan noo ansixisaan miisaaniyadda horta inay labadaba isku raacaysan oo noo ansixisaan